السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي سلامي ولا عليكم مسلمين تعمل كستو أجوكتان سو دواذا جنالك ولا شي نفاذ مع عبد الله جنالك سو دواذا ما انت فاضل محيني ودا أبوان الصوماليات أيان إذين ودا بروحوا إلى أقرنا ما انت إلى أرك أصحابتي إذا قارقة كسو دواذا جنالك وجنالكينا oo dhamaantood ku saabsan wacyiga jira ee Soomaalidu waqtigan xaadirka ku sugan tahay inaan ku soo qaato halkan waxaan ku qoray maahmaahiyo afaray ah oo aan saa u badnayn waxaan ka bilaabay Soomaalidu waxay isku haysataa waa maxay waxay isku haysataa luglulumo lis kaneeco lag quraanyo iyo laf aboor Soomaalida afartaas ay isku haysataa Soomaalida afar arrimood ayaa kala dishay lur adduunyo lib xumaato liq magawso iyo lar qabyaalo afartaas ayaa kala dishay Soomaalidu afar arrimood ayay waayaan dhaqan ka dhigat sax la diido sun dabiib ah sir gudoona iyo saf qiyaamo Soomaalida afar arrimood ayaa looga caalwaayay gar qaloocan gaf u hiili gab dantaada iyo gub dalkaaga Soomaaliya afar nin baa baabaha ka dhigtay mufti eexda mas'uul tuug ah marag iib ah iyo mufsad duub ah Soomaaliya afar arrimood bay u baahan tahay marka rabbi aqoonti rasuul adeeci rafiiq xalaala iyo rasaas la joojo Soomaaliya waxa maanta aysan ka maarmi kalin dan wadaag ah dar nadiif ah dad israaca iyo dib loo heshiiyo Soomaaliya waxa maanta heer fiican gaarsiin kara qusuusi caagan qalbi saliim ah qabyaalad reeban iyo qaran heshiis ah Soomaaliya afartan ayaa maanta hogaamin ka imaam caadil ah ikhyaar talisa aqool suuban iyo ubad rabaysan intaas ay u baahan tahay maanta tobankan arrimood oo aan toban kala hayn baa Soomaaliya maanta rogtay hunguri aan xisaab lahayn hiil aan aakhira lahayn hawraar aan duluc lahayn hoggaan aan samir lahayn hayaan aan yool lahayn jacayl aan hadaf lahayn halbeeg aan qiyaas lahayn haraad aan biyo lahayn iyo heshiis aan qodob lahayn intaas ay caado ka dhigatay Soomaaliya qaran bay ahayd qarankeedina waa burburisay waxa la yiraahdaa arintan maahmaahada ku bara xisaab innaga qaran baan ahay qarankeena waa burburinay federaal baa la inoo keenay wixii caawa lama naqaan federaalki markii la inoo keenay dastuur baynu u sameeysanaa waxa la lahaa mahiiga iyo magaciisa sameeyay meel laga keenay ma naqaan xildhibaanaan ku dooranay qaar baa dibadda ka yimid kuwana 4.5 ayagoo dhan ku soo baxeen mooshin iibahay la yimaadeen madaxweyne ku doorteen waxa la yiri marka federaal mixnad ah oo lagu daray dastuur mugdi ah oo lagu daray xildhibaan macmal ah oo lagu daray mooshin iib ah oo lagu dhuftay madax ardaal ah oo loo qaybiyay maqoorad foolxun waxay la mid tahay qaran madluuna federaal mixnada marka hore federaal mixnadu waxa lagu daray dastuur mugdi ah wuxuu dhalay xildhibaan macmal ah waxa lagu daray mooshin iib ah waxa ku soo baxay madax ardaal ah waxay keeneen maqoorad foolxun wuxuu dhalay qaran madluuna Soomaaliya tobankan arrimood bay maanta u baahan tahay tobankan weydana shakiga oo laga xafido sharka oo laga xijaabo shaqaaqada oo la dhowro shafiicada oo lagu heshiiyo shaydaanka oo laga naaro shawrka oo la isku raaco shuruudaha oo la oofsho shanshada jaban oo la kabo shugriga eebo la naqo iyo shisheeyaha oo nadaaya ana wada shisheeyo faraha naga qaada nafta la ibnoo keenay innaga marka tobanka waxaan ku soo koobayaa 12 kan arrimood 12 kan arrimood waxa la yiraahdaa nin kasta oo raba inuu taliye caan noqdo baa u baahan markaad rabto inaad taliye caan noqoto waa inaad keeni kartaa qorshe turxaan leh waa inaad haysataa odayaal aan tafniidin
waa in reerkiinu leeyahay dhalinyaro takooran waa inay leeyihiin boobayaal tamcaaran waa inaad u hayso darooga taam ah waa inaad u heli karto horjooga tuug ah waa inuu jiraa daris tagoog yar waa inay jirtaa aana la tiilay waa inuu jiraa guubaabsho taaha waa inaad heli kadhaa gabdho tolaa ay beena waa inay haystaan tahluu waa inay geysan karaan tahluu ka xoog leh waa inaad leedahay idaacad tabisa waxa tahay taliya caan labiyo tobankan arrimood waa labiyo tobanka Soomaali waxayaan saddexdiina jajuubtay ma saddexdii wax jabisay saddexdii jaaniska siisay saddexdii wax jajuubtay iyo saddexdii ka jidowday baa la yiraahdaa waxa najabiyay janan caraysan oday u jiibsha iyo jaaliyada xisaabtamin oo wax isaga hurgufta waxa noo jajuubay oo ayagana caawiyay waxa kan la yiraahdo jamhad caraysan qabiil jidbaysan iyo waxa kan la yiraahdo iyo daris la jaal ah dawladda la jaal waxaana la ku sii jajuubay oo meeshaas nooga dhacay James Kafooriya iyo Tibaaxa Suuya iyo rasaasta jiifka maxaa nooga jidoobay waxa nooga jidoobay jidgooyo la isugu faano dagaal aan joogsi lahayn iyo sharciga laga